daawadayaal qodobada warkeena caawa aad ku daawan doontaan waxa kamid ah xaaladda magaalada Jigjiga oo wali cakiran iyo ciidamada gumaysiga Itoobiya oo xiray wadooyinka soo gala magaalada Jigjiga golaha wasiirada xukuumadda gumaysiga Itoobiya oo shir ka yeeshay xaaladda qasan ee wadanka Ogaadeniya hogaanka warfaafinta jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo Isa TV ay ka wareysatay qalalaasaha ka taagan Ogaadeniya iyo ninkii ka dambeeyay isku dagii dil ee uu ka badbaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda gumaysiga Itoobiya oo gacanta lagu dhigay daawadayaal qodobada iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad warkeena caawa ku daawan doontaan haatan ku soo dhawaada asagiyo faahfaahsan wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ayaa sheegaya inay maalintii lixaad qasan tahay xaaladda magaaladu taas oo inta badan dadkii iskaga qaxeen deganaa magaalada wararku waxay sheegayaan inay wadooyinka magaalada ay taagan yihiin ciidamada militariga gumaysiga Itoobiya kuwaas oo ku hubeysan qoryaha darandooriga u dhaca ciidamada militariga gumaysiga Itoobiya ayaa dadka shacabka u diidan inay ka baxaan magaalada halka oo sidoo kale iska hortaageen in magaalada la soo galo sida ay Ilays TV u sheegeen dad ku sugan magaalada oo ehelkoodii laga soo celiyay duleedka magaalada ciidamada gumaysiga Itoobiya ayaa xidhay wadooyinka magaalada ka soo gala dhanka dhagax buuriye wajaale waxa jira warar sheegaya in dadka kaliya ee loo ogol yahay inay magaalada ka baxaan ay yihiin dadka aan Soomaalida ahayn waxa xidhan inta badan ganacsigii magaalada inkastoo oo maanta la arkay dhowr mehradood oo furan oo ay leeyihiin Soomaalidu dhanka kale wararka ka imaanaya magaalada dhagax buuriye xarunta gobolka Jarar ayaa sheegaya in ay magaalada isku aruursadeen maleeshiyaadkii liyu booliska ahaa kuwaas oo hadda ka hor ciidamada gumaysiga Itoobiya ay u carbiyeen gumaadka shacabka Soomaaliyeed maleeshiyaadkan oo amar diido ku sameeyay saraakiisha ciidamada gumaysiga Itoobiya ayaa ku hanjabaya sida ay wararku sheegayaan inay weerar ku qaadi doonaan magaalada Jigjiga jaawareer xoogan ayaa ka taagan dhammaan gobolada Ogaadeniya taasoo shacabkuna ka dhul sugayaan talaabada ay qaado jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya golaha wasiirada xukuumadda gumaysiga Itoobiya ayaa waxay ka yeesheen shir degdeg ah xaaladda cakiran ee ka taagan Ogaadeniya kulanka uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda gumaysiga Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxaa diiradda lagu saaray qalalaasaha ka taagan Ogaadeniya iyo ciidamada xoogga ku galay maamulka magaalada Jigjiga xogo hoose oo laga helay kulankaasi ayaa lagu sheegay in golaha wasiirada xukuumadda gumaysiga Itoobiya ay isku raaceen in looga dambeeyo xaaladda wadanka Ogaadeniya ninka gumaysiga ugu magacaaban wasiirka warfaafinta ee lagu magacaabo Axmed Shide kulankaasi kadib wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha gumaysiga Itoobiya ayaa lagu sheegay in lagu wargelinayo shacabka Ogaadeniya iyo haraagii maamulkii Cabdi Dabaqoodhi inay arrimahan cakiran uga dambeeyaan wasiirka warfaafinta Itoobiya Axmed Shide Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha xukuumadda gumaysiga Itoobiya ayaa sheegay in Axmed Shide wasiirka warfaafinta Itoobiya uu wakiil uga yahay xafiiska ra'iisul wasaaraha arrimahan cakiran ee Ogaadeniya arrintan ayaa muujinaysa inaynan xukuumadda gumaysiga Itoobiya uu hogaamiyo Abiy Ahmed inaysan diyaar u ahayn inay hab nabadeed ku dhameyso xaaladda wadanka Ogaadeniya kalena xaajooto cidda ay khusayso oo ah jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya afayeen u hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha gumaysiga Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay ninkii ka dambeeyay isku daygii dil ee fashilmay ee lala beegsaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda gumaysiga Itoobiya Abiy Ahmed xilli uu khudbad u jeedinayay taageerayaashiisa sida uu afayeen ku sheegay ciidamada gumaysiga Itoobiya ayaa gacanta ku soo dhigay Tasfaaya Areega oo ah madaxa xafiiska waxa ay gumaysigu ugu yeedhaan argagixisa la dagaalanka kaasoo la sheegay inuu isagu soo maleegay isku dagii dil ee Abiy Ahmed lala beegsaday 23 Juun ee sanadkan aan ku jirno xilli uu magaalada Addis Ababa dad kula hadlayay Tasfaaya Areega oo ninka loo haysto faldambiyeedkan ayaa kamid ahaa xubnihii ugu firfircoonaa ciidamada sirdoonka gumaysiga Itoobiya wuxuuna Tasfaaya ahaa shakhsigii lagu aaminay inuu madax ka noqdo xafiiska ciidanka ka hortaga argagixisada qaybtiisa Addis Ababa afayeenka gumaysiga Itoobiya ayaa sheegay in Tasfaaya maxkamad loo horkeeni doono isagoo intaasi raaciyay in loo hayo cadeymo badan oo la xiriira falka Tasfaaya loo haysto wuxuuna afayeenku sheegay in ciddii kale ee falkaasi ku lug yeelata ayadana cadaalad la horkeeni doono
xukuumadda gumaysiga Itoobiya iyo ciidamadeeda ayaa aad u kala shakisan kadib markii saraakiisha ciidamada gumaysiga Itoobiya ay muujiyeen sida ay ula dhacsanayn qaabka ay wax u socdaan. xukuumadda gumaysiga Itoobiya iyo ciidamadeeda ayaa aad u kala shakisan kadib markii saraakiisha ciidamadu ay muujiyeen sida ay ula dhacsanayn qaabka ay wax u socdaan. iyo saraakiisha ciidamada ee ra'iisul wasaaraha cusub uu beegsanayo qaarna uu xilalkoodii ka eriyay. kala shakiga saraakiisha sarsare ee ciidamada gumaysiga Itoobiya ayaa soo bilowday sanadkii 2015 kadib markii kacdoono xoogan ay ka bilowdeen wadanka Itoobiya gaar ahaan qoomiyadaha Oromada iyo Axmaarada. kala shakiga saraakiisha sarsare ee xukuumadda gumaysiga Itoobiya ayaa soo bilaabatay sanadkii 2015 markaas ay wadanka Itoobiya ka bilowdeen kacdoomo xoogan oo ay horkacayeen qoomiyadaha Oromada iyo Axmaaradu. hogaanka warfaafinta ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo mudane Xasan Macalin oo laga waraystay TV-ga caalamiga ee ESA TV ayaa sheegay inay aad u soo dhaweynayaan xilka qaadistii lagu sameeyay wakiilkii gumaysiga Itoobiya u fadhiyay wadanka ogaadeen iyo Cabdi Ilay kaasoo uu sheegay inay ahayd in mar hore xilka laga qaado. mudane Xasan Macalin ayaa sidoo kale wuxuu sheegay inay urur ahaan ka xun yihiin in la gubo meel wax lagu caabudo. sidoo kale wuxuu sheegay inay ka xun yihiin in ciidamada federaalka gumaysiga Itoobiya ay faragelin ku sameeyaan gobolka Soomaalida Ogaadeniya. waxa kale oo mudane Xasan Macalin ugu baaqay shacabka Soomaalida Ogaadeniya inay israacaan. hogaanka ayaa wuxuu tacsi u diray dhammaan dadkii lagu laayay magaalada Jigjiga iyo magaalooyinka kale ee wadanka Ogaadeniya. wuxuuna hogaanku cambaareeyay rejiimkii falka geystay. wuxuu sidoo kale ku baaqay in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyay dhibaatadii kala duwaneed ee ka dhacday gudaha wadanka Ogaadeniya. waxa kale oo mudane Xasan Macalin ugu baaqay shacabka Soomaalida Ogaadeniya inay ilaaliyaan danta guud, xasiloonida iyo amnigoodaba, isla markaana aysan cidna u geysanin wax dhibaato. daawadayaal warkii oo kala socoteen TV-ga qaranka Ogaadeniya Ilays TV halkaas ayuu caaweyn ugu dhan yahay.